soo dhawaada saaxiibayaal sheekada filimka waxay ku bilaabataa burburka buuxa ee dayax-gacmeed Sordon ah shisheeye ajnabi ayaa mas'uul ka ah qaadista dhagaxaanta tamarta leh ee loo yaqaan Secret wuxuu la kulmaa dad awood u leh inay xambaaraan awooddaas maadaama uu hadda ku sugan yahay heerkiisa ugu dambeeyay ee noloshiisa xilligaas dabeecaddu xun Rita waxay isku dayaysaa inay dhagaxaanta xado qarax ayaa si lama filaam ah dhacaya waxay u muuqataa in dadkii meesha joogay dhammaan ku dhinteen dhagaxaantaasi waxaa lagu aasay agagaarka meeshaas sheekadu waxay u gudubtaa meel uu wiil ku dhibaateynayo arday kale oo isku fasal yihiin halkaas ayuu ku soo muuqday haliga Jason oo ah badbaadiyaha wiilka la dhibaateynayo wiilka la dhibay magaciisu waa Billy markay waqti badan isla qaateen Jihon iyo Billy waxay noqdeen saaxiibo fiican waxay go'aansadeen in habeenkii kaliya seexdaan duurka meel laga qodayo macdan oo cidla ah halkaas ay kula kulmayaan wiil kale iyo gabdhood xilliga mugdiga ee habeenkii qof walba wuxuu arkaa hilaaca korontada ee cirka waxayna wada dareemayaan xiise sii kordhaya waxay heleen isla dhagaxaantiisii oo hore u hayay Sordon laakiin dhamaantood kama warqabin wax ay yihiin isla waqtigaas ilaaladii macdanta ayaa timid laakiin dhamaantood waxay u suurta gashay inay ka soo baxsadaan ayagoo wata dhagaxaantii ay heleen dhanka kale kulmaysato ayaa kulmaysanaya waxay sidoo kale qabtaan meyd dumar ah oo la socda kalluunka meydkan waa Rita oo hore ugu tala gashay inay dhagaxaanta ka xado Sordon muuqaalka xiga markay subaxnimadii tooseen dhamaantood waxay dareemayaan inay heleen awood gaar ah awooddaas waxay kordhisay xoogooda iyo xawligooda waxa inta oo dheer waxay awood u leeyihiin inay meel dheer u boodaan arrintaas waxay ku abuurtay walaac waxay go'aansadeen inay ku soo noqdaan isla meeshaas kulmaysatadii waxay booliska ugu warbixiyeen meydka ay heleen markii booliska baariyay meydka Rita ayaa soo toostay waxa ayna dishay askarigii kadibna waxay u jihaysataa magaalada dhanka kale dhalinyaradii waxa ay bilaabeen inay saamiyaan awoodahooda ay tababaraan kadibna wax ay galaan dayax gacmeed biyo dhex fadhiya antoo waa ay la yaabin yihiin waxay aaminsan dhagaxaanta ay heleen in qayb ay ka tahay dayax gacmeedka muuqaalka Sordon ay ka soo muuqda barnaamij kombiyuutar ah wuxuu u sheegay haddii aad rabtaa inay heshaan dhagaxaanta markaas idinka ayaa noqonaya Power Rangers si aan hore u ahaan jiray hadda waxay aad u ilaalin doonaan dhagaxaanta iyo dhulka dhanka kale Rita waxay raadinaysaa dahab si ay u dhameystirto ul dahab oo sixir leh sababtoo ah u sheegay dahabka ayaa la sixir uga galanay inay ciidan keento halkaas Jason iyo Power Rangers kale waxay tababar ku sameeyeen dagaalka si ay ugu diyaar garoobaan dagaalka Rita marka ay soo laabato Rita waxa ay gashay dugaan dahab waxayna ka soo qaadatay dahabkii u baahnay si ay u sheedo u dhisto markii booliska yimaadeen waxay burburisaa wax walba waxayna dishaa qofka dhamaantood waxay isku yimaadeen dayax gacmeedka si ay u marfgareeyaan Marfi waa geedi socodka mideynta fikirka ujeedada leh dhamaantood waxay heleen libis gaar ah midabka libiska wuxuu ahaa casaan huruud iyo buluug iskan wuxuu xoojiyay awoodooda waxayna isticmaali karaan booti taasoo aan arki doono kordh Rita waxay kicisay ciidankeedii waxayna dhistaa robot weyn oo dahab ka sameysay hadda Power Rangers waxay u dhaqaaqaan meesha waxay bilaabayaan dagaal si qurux badan loo jilay filimka robot dahabka ayaa soo galay magaalada dhammaan Power Rangers waxay ku duuliyaan bootiskooda si ay u joojiyaan burburka Power Rangers waxay mideeyaan dhammaan sordiskooda waxay dhistaan robot weyn oo awood badan Rangers si geesinimo leh ay u dagaalamayeen waxay ka adkaadeen Rita iyo Mixorkeeda magaaladu waxaa laga badbaadiyay burbur Power Rangers waxay u heeliyihiin ilaalinta dhulka like share and subscribe sar haddii aad ku raaxaystay fiidiyowga